Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaa laga yaabaa in dhammaanteen aan hore u maqalnay goobta loo yaqaano Area 51. Goobtan aadka u sirtay qarsoodida badan. Muddooyinkii dambena waxaa jiray asxaab ku xidhan kanaalkeena oo ii soo sheegay inaan ka soo hadlo goobtan Area 51. Insha Allah maanta waxaan wax ka oran doonaa goobtan. Sidoo kalena waxaan sheegi doonaa mid ka mid ah tijaabooyinkii ugu halista badnaa ee uu fuliyay waddanka Mareykanka oo ahaa mashruucii Abagal oo laga fuliyay gudaha goobtan sirta badan leh. Intaynaan u guda galin mowduucan ahay loobin inaad like saarto muuqaalka. Mahadsanid. Area 51 ama goobta konton iyo kow waa qaacida ama xarun ciidan oo sireed oo ku taala gudaha gobolka Nevada. Gudaha xaruntan waxa ku yaala garoon diyaaradeed oo military oo xajmigiisa ama cabirkiisu aad u weyn yahay. Ujeedada loo aasaasay xaruntanna waxay tahay in lagu tijaabiyo laguna horumariyo diyaaradaha dagaalka ay sameeyaan dalka Mareykanka. Haddii eegno sidii loo aasaasay goobtan iyo magaceedu halkii uu ka yimi bilowgii kontameeyadii qarnigii hore, dalka Mareykanka ayaa ka fulin jiray hawlgallo dhanka hawada oo uu dul marinayay diyaaradihiisa meelihii ay maamuli jireen Midowgii Soviet, macnaha dalka Ruushka iyo dowladihii la jaarka ahaa. Waqtigaasna wuxuu ahaa dalka Mareykanka mid ka cabsanaya dalka Ruushka inay soo ridaan diyaaradihiisan sababtoo waxay dulduulayeen meeshii ay maamulayeen Midowgii Soviet. Sidaa darteed wuxuu ku fikiray Mareykanku waxay sameyn lahaayeen sidii ay uga bixi lahaayeen cabsidan. Sanadkii 1954 madaxweynihii Mareykanka ee waqtigaas lagu magacaabayay Eisenhower ayaa amray in la aasaaso goob sir ah oo lagu tijaabiyo laguna horumariyo diyaaradaha dagaalka ee waddankaas. Wuxuuna u doortay goobtaas Area 51 sababtoo waa meel ka go'an caalamka kale oo aanu soo gaari karin qofna. Area 51 ama goobta konton iyo kow ma jiro qof si sax ah u garanaya sababta loogu magacaabay magacan, laakiin waxaa jirta aragti odhanaysa goobtani waxay ku dhex taalay meel lagu magacaabi jiray Nevada Nuclear Testis oo ahayd xarun weyn oo ay hore u lahayd dowladda Mareykanka oo ay ku tijaabin jireen hubka nuclear-ka. Goobtan lagu magacaabi jiray Nevada Nuclear Testis waxay ahayd meel aad u weyn oo kala qaybsan qaybo sidan oo kala ah: Area 1, Area 2, Area 10, Area 51 iyo qaar kale oo la mid ah. Sidaa darteed Area 51 ay u dooratay xukuumaddu inay noqoto goobta sirta ay ka fulinayaan tijaabooyinka diyaaradaha iyo horumarintooda. dabcan goobtan amnigeedu waa mid ilaa xad la ilaaliyay ilaa ay gaarsiiyeen inaanay awood u lahayn inay gudaha u soo galaan xubnaha ugu sarsareeya ee militariga. waxaana lagu magacaabaa gaadhka ama ilaalada ilaalisa goobtan magaca Kaamu, waxayna u ilaaliyaan oo ugu wareegaan goobtan si joogto ah. haddii ay la kulmaan waxaanay ku qancinna waxay fasax u haystaan inaanay ka labalabayn inay ku furaan rasaasta. haddii aad soo gaadho meesha laga galo goobtan waxaad la kulmaysaa boorar digniina oo kuu sheegaya in haddii aad ka soo gudubto goobtan aad la kulmaysaa xabsi iyo ganaax. sidoo kalena haddii aad soo dhaafto boodhkaas waxaad la kulmaysaa boodh kale oo kuu sheegaya in haddii aad qaado tallaabo kale aad la kulmi doonto rasaas aanad garanayn meel ay ka timi. arrinkaasna waxay noo caddaynaya labada nin ee mootada watay ee isku dayay inay ka gudbaan boodhkaas gudahana u galaan goobtan Area 51, waxayna la kulmeen markiiba ciidanka sida joogtada u ilaaliya goobta oo si toos ah ugu soo jeediyay hubkii wejigooda. We got things happening. I know, I am. Yeah. Hands up. I'm not going to tell you again. Turn around. iyo sidoo kale ninkan kale ee isku dayay inuu ka furo meeshan boodhkii digniinta ahaa ee ku xidhnaa albaabka hore ee laga galo goobtan, laakiin sideen arki doonno may soo daahin jawaabtiisii ahayd rasaasta. iyadoo ay ka faafeen kutirikuteena iyo hadallo badan oo beena goobtan, haddana xukuumadda Mareykanka waxay ahayd mid diidda oo inkirta sanado badan jiritaanka goobtan. waxaynu jeednaa goobta Area 51. diidmadaas iyo inkiraadaas badan ee ay diidaysay xukuumadda Mareykanka goobtanna waxay ka dhigtay dadkii inay aaminaan inuu ka jiro gudaha goobtan arrimo aad u sir badan oo halis badan oo ka dhigay xukuumadda Mareykanku inay diido jiritaanka goobtan ilaa ay gaadheen in madaxweynayaasha Mareykanku ay ku dhiiran waayaan inay ku dhawaaqaan magaceeda oo kaliya. madaxweynihii kaliya ee ku dhiiraday inuu sheego goobta magaceedana wuxuu ahaa Barack Obama, wuxuuna ka hadlay ka hor intaan uu noqon madaxweynaha oo wuxuu ku sheegay mid ka mid ah khudbadihiisii ka horreeyay doorashada in marka uu noqdo madaxweyne arrinka kaliya uu doonayay inuu ogaado uu ka salgaadho uu yahay xaqiiqda goobtan Area 51. hadalkaas kadibna aad ayuu u faafay arrinka goobtani, dadkiina waxay isla dhex qaadeen inay soo afjarmi doonto sirnimadeedii. laakiin sidii ayuu noqday mowqifkii Obama kadib markii uu ku guuleystay doorashada. nasiib darro kadib markii Obama noqday madaxweyne uu isbedelay gebi ahaanba mowqifkiisii ku wajahnaa Area 51, waxaana laga weydiiyay arrinka goobtan wax ka badan hal waraysi. laakiin markasta oo wariyaashu ay su'aal ka weydiiyaan goobtan wuxuu ku gaabsanayay uun kaliya qosol.
sidoo kalena Hillary Clinton oo ahayd iyaduna mid u sharaxneyd jagada madaxweynaha ee dalka Mareykanka sanadkii 2016 ayaa sheegtay in haddii ay ku guulaysato kursiga ay ka qaadi doonto daaha wax kasta oo ku qarsoon goobtan Area 51 oo ay xaq u leeyihiin muwaadiniinta Mareykanku inay ogaadaan waxa ka dhex socda wadankooda. waqtigii koowaad ay qaratay dowladda Mareykanku jiritaanka goobtanna waxay ahayd kadib 58 sano asaaskeedii oo ku beegnay sanadkii 2013. waxaa jirtay dhacdo iska fudud oo ku saabsan goobtan oo dhacday sanadkii 2019. nin dhalinyaro oo lagu magacaabo Matty Robert oo ka mid ah dadka aadka uga firfircoon dhanka Facebooka ahna mid aad u aaminsan inay ku jiraan goobtan Area 51 suxuunta duusha iyo noolayaasha ku nool hawada sare. ninkan wuxuu ka abuuray dhanka Facebook event uu magac uga dhigay in xoog lagu galo goobtan Area 51, wuxuuna sheegay inuu doonayay inuu daaha ka qaado arrintan wareerisay adduunka oo dhan iyo sidoo kale noolayaashan ku qarsoonaya uu aaminsanaa isagu. waxa laga yaabaa inuu ninkan u sameeyay eventigan iska bilaa macni, laakiin wixii dhacay wuxuu ku noqday kadis. kadib 3 maalmood oo kaliya markii uu sameeyay eventigan waxa ku soo biiray oo waafaqay inay ku soo biiraan dadka sida xoogaa ku jiray goobtan dad ku dhow 2 milyan oo qof. balanta xukugalka goobtanna wuxuu ka dhigay 20kii bishii Sebtembar, laakiin xogaga ciidanka ee Mareykanka ayaa si degdeg ah uga jawaabay arrinkan, waxaana sheegeen inay u diyaar garoobayaan inay ka hortagaan isku day kasta oo la isku dayo in xoog loogu soo galo goobtan, oo xitaa ay sameynayaan haddii ay kansato inay ku furaan rasaasta cid kasta oo u soo dhawaato goobtan. marka ay ka soo wareegeen arrinkan dhowr maalmood oo ay u diyaar yihiin dad gaadhaya malaayiin qof inay xoog ku jiidhaan goobtan, Matty Robert oo ahaa ninkii ku soo faafiyey eventigii Facebooka ayaa sheegay in arrinkan uu ka ahaayun kaliya madadaalo. sidoo kalena wuxuu sheegay in aanu qaadin mas'uuliyadda uu ka bari yahay haddii ay dhacdo uu qof isku dayo inuu xoog ku galo goobtan Area 51. haddayna intaas kaga dhimaadno waxaan ka sheegaynay goobtan sirta badan ee Area 51 aynu nimaadno imikana mashruucii ugu halista badnaa ee laga fuliyey gudaha goobtan. ka hor 10 sano waxaa jirtay gabadh aad u qurux badnayd oo go'aansatay inay ku tabarucdo jidhkeeda in lagu fuliyo tijaabadii ugu horeysay ee ka dhacda goobtan Area 51. waxayna la kulantay gabadhay mid ka mid ah tijaabooyinka ugu xun oo lagu miday jidhkeeda maadooyin iyo kiimiko bedelay jiniskeedii, midabkeedii iyo sidoo kale quruxdeedii. gabadhan aadka u quruxda badnayd waxa lagu magacaabayay Abigail, dabcan mashruucanna waxa lagu magac daray iyada. Abigail waxay ahayd gabadh u dhalay mid ka mid ah khubradii ka shaqeynaysay goobtan Area 51. khabiirkanna waxa lagu magacaabayay Albert Wesker. dowladda Mareykanku waxay u malaysay in guulihii dagaal ee uu gaadhay Hitler ay natiijo u yihiin tijaabooyin sireed uu ku sameeyay ciidankiisa. macnaha waxay u maleynayeen inuu ku miday ciidankiisa maadooyin, sidaa darteedna ay ugu guuleysanayaan dagaalka kuna noqdaan ciidanka ugu awoodda badan adduunka. sidaa darteed dowladdii Mareykanku waxay ku fikirtay inay sameeyaan tijaabooyin la bedelayo oo lagu ciyaarayo jiniska dadka, laguna soo saarayo dad aad u awood badan, dad sida kuwa aan ku daawano filmaanta oo kale. kadib markii ay qorsheeyeen khubradii inay sameeyaan tijaabooyinkan waxay waayeen qof ku tabaruca jismigiisa si uu noqdo qofkaasi meesha koowaad ee lagu tijaabin lahaa tijaabadan halista badan. arrinkaasina waa arrinka ka dhigay khabiirkii Albert inuu keeno gabadhiisa uu dhalay si ay u noqoto tijaabada koowaad. arrinka la yaabkanna wuxuu ahaa gabadhiisan iyada lafteeda ayaa ka codsatay aabaheed inay noqoto qofkii koowaad ee lagu tijaabin lahaa tijaabadan. waxayna aamineen labadan qof ee kala ah aabahan iyo inantiisu in tijaabadan ay tahay mid lagu kalsoon yahay inay guuleysan doonto, laakiin nasiib darro aaminaadoodaasi waxay ahayd mid khaldan. marka ay bilaabantay tijaabadii, qaar badan oo ka mid ah khubaradii la waday Albert hawshan ayaa kula taliyay inuu istaajiyo tijaabadan, gaar ahaan marka ay ka soo muuqdeen jidhkii gabadha astaamaha fiicnayn, isagoo bilaabay jidhkii gabadhu inuu isbedelo markiiba. wejigeedii wuxuu bilaabay inuu isbedelo, sidoo kalena ilkaheedii waxay bilaabeen inay u weynaadaan si cabsi leh. sidoo kale midabkii jidhkeeda iyo timaheedii waxay bilaabeen inay isbedelaan iyaguna, waxaana ka soo muuqday jidhkeedii astaamaha gabowga iyadoo ahayd asal ahaan qof dhalinyaro ah. waqtigaasna waxay bilaabeen khubradii kale inay ku qanciyaan Albert inuu istaajiyo gabi ahaanba tijaabadan, sababtoo ah astaamahan ka soo muuqday gabadha ma ahayn kuwii ay ku talagaleen. sidoo kalena gabadhani waxay ahayd gabadhiisa kaliya ee uu dhalay khabiirkani, laakiin Albert wuxuu ku sii adkaystay inuu dhammaystiro ilaa ay tijaabadani ka guuleysanaysa ama ay ka dhimanaysa gabadhiisu. waxay isku bedeshay gabadhii noolo kale oo aan ahayn bini'aadam. markaan leeyahay noolo kalena waxaan u jeedaa waxa ay ku sababeen maadooyinkii lagu midayay jidhkeeda oo ku ciyaaray jiniskii gabadhan. waxayna weydiyey gabadhii dhammaan sifooyinkeedii iyo astaamaheedii bini'aadanimo, oo waxaan odhan karnaa waxay isku bedeshay gebi ahaanteedba bahal. iyadoo ay dhaceen waxaasoo dhan, haddana Albert wuxuu ku sii adkaystay hadalkiisii, wuxuuna aaminsanaa in tijaabadani ay guuleysan doonto. laakiin ciidankii Mareykanku waxay diideen inay ku bixiyaan dhaqaale intaa ka badan. tijaabadana iska caddahay inay fashilantay, waxaana la istaajiyey gebi ahaanba tijaabadii. kadib 4 sano istaajintii tijaabadana, Albert wuxuu gooyey naftiisii, laakiin wuxuu qoray dardaaran uu kaga codsanayo ciidanka Mareykanka inaanay dilin gabadhiisa oo ay daayaan ha iska noolaatee. dabcan markay arkeen ciidankii dardaarankanna way ixtiraameen dardaarankii manay dilin gabadhii. intaas ayuuna ku egyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen
ha iloobin hadduu ku qanciyey muuqaalku inaad like saarto subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelka Ogaal Cusub waad mahadsan tahay